maantayta waxaanu halkaan isugu nimid annagoo ah gabdhaha Puntland meel ay joogaanba anigoo salaamaya gabdhaha Puntland oo aad iyo aad u qiimaha badan inaanu ka qayb qaadanno difaaca dalkayaga ayadoo annagu cidna aanan ku duulin oo cidna aanan la dagaalaminin oo cidna aanan aadin oo nala soo aaday oo nala soo dagaalamay oo naloo soo duulay oo cirkuna soo ku baareeyay oo xeebtayadii nala ku soo ku baareeyay annagoo xeebahayagii nala ku soo ku baareeyay baan waxaanu diyaar u nahay difaaca dalkayaga haddaanu nahay gabdhaha gobollada Puntland khaasatan annagoo gabdhaha gobolka Mudug jooga tan iyo habeenkii uu dagaalku bilowday ma aanan istaaginin aniga haddii dad baa baqaya oo waxay leeyihiin waa lagu dilayaa aniga haddaan dhinto waxaan ku dhimanayaa geeri sharaf leh geeri sharaf laan ku dhimanayaa haddaan noolaadaan nolol sharaf laan ku dhimanaya ku noolaanayaa nolol cariiriya intaan ku noolaan lahaa geeri sharaf laan ku dhinto waxaanu difaacaynaa dalkayaga iyo dadkayaga iyo ciidayada iyo makasayadaanu difaacaynaa waxaan la dagaalamaynaa cid allaale ciddiina soo ataagta cid allaale ciddii Puntland soo falaashta waanu u jawaabaynaa annaga Puntland baana la yidhaahdaa dadka ma maagno haddii nala falaashana waa jawaabnaa jawaabtii baa hadda taagan waa jawaabnay waxaanu hadda halkaan ku haynaa burhaan waxaanu qalnay geel tan iyo tii gurmadkii waa isla socday waxaanu dibnay shabaayadii waxaanu haynaa timirtii waxaanu haynaa kalluunkii waxaanu haynaa sharaabkii nin walba oo askariya oo dagaalamaya sidaasoo kaleeta baanu burhaan afka u qabo hilibkii si askarigu uusan ugu halmaaminin magaciisiiga waxaan rabnaa nin walba bacdiisaasoo halgaada waxaa ku jira hilibkii oo shiilan waxaa ku jira sabaayadii waxaa ku jira buskudkii waxaa ku jira timirtii waxaa ku jira malaydii bacmadooda nin walba intiisa garaanka ugu ridaynaa meeshuu joogaan ugu geynaynaa si ay nimanku karkaris iyo dhibaato iyo mid buu ka go'aya la odhan lahaa hadda waad u jeedaa waxaa halkaan gabdhihii gobolka Mudug ay soo bandhigeen waxaanuna leenahay cayaari waa galin dambe waa sidaasoo aanu ka sii wadno haddii ilaahay raalli ka noqdo